gogashaas kama qayb gelin waana ka xunnahay marka labaad shirka in lagu soo qaado gado dhibaatada ka taagan ee indhaha laga qabsaday hiiraan dhibaatada ka taagan ayadana aad baan naga xunnahay waxaan marka diyaar u nahay in arrimaha noocaasa ee qaladka u dhacay aan isku dayno reer hiiraan haddaan nahay inaan saxno sidaan ku saxayno waxa waaye ra'iisul wasaare hawshan adaa lagu xilsaaray si fiican aad u qabatay qof kastoo bini aadana ama qof kastoo wax qabta dhaliilo waa leeyahay dhaliishaadi waxay noqotay adoo arkaya qaldaadka meesha yaallo inaad indhaha ka qabsato inaad gadana ka hadasho hiraanna ka hadli weysid aad ayaan midaas foolxumo ugu aragnaa ummadda nala midka ah oo dhanna ay u arkaan inay foolxumo tahay waxaa intaas sii dheer waxaa maalmahan dambe suuqa ku jiray ee warar ahaa in aad imaanayso hiiraan beledweyne khaasatan taas waa ku mahadsan tahay waa dalkaagii waad imaan kartaa waa gurigaagii waad imaan kartaa cid kaa mamnuuci karta ma jirto laakiin waxyaabaha dadku shucuurtooda iyo damiirkooda uu diidan yahay ayaan kuu sheegaynaa inaadan la iman oo ah adoo cali guudlaa u wada ha soo gelin magaalada haddaad soo gashana wixii ka dhaca oo dhibaato ah adaa ka mas-uul noqonayo si caddaanan haddaba kugu sheegay oon qarsoodi lahayn sababta aan ku leeyahana waxa waaye waad og tahay cali guudlaawe inuuna madaxweyne hirshabelle ahayn adduunyadaa og reer hiiraanaa og cid walbaa og sababta lagu dhisay hirshabelle min raas kambooni ilaa raas caseyra laga ogda nimankan hadda hirshabelle madaxda ka ah waa niman loogu talagalay in ay ceel ku ridaan dantii iyo maslaxaddii dalku uu lahaa madaxna maaha niman dhaartay maaha niman la caleemo saaray maaha niman la ogol yahay maaha waxa u wadataan aniga ma garan karo ujeeddada u wadataan waa ujeeddo khaldan bismillaahi raxmaan raxiim haddii aan ka hadlo arrimaha hiiraan iyo xaaladda hadda taagan ra'iisul wasaare rooble arrimihii mataqaanaa doorashooyinka ee xamar inkastoo gobolka hiiraan arrimihiisa aan lagu soo qaadin oo gobolka gadar lagu soo qaaday inta badneed way u hagaagtay laakiin hadda ra'iisul wasaaraha waxaan ugu digaynaa asigoo doonaya xal inuu abuuro inuu nabadgelyo darro sii abuuro maaha sidaa darteed waxaan u sheegaynaa ra'iisul wasaaraha in wax hirshabelle ka socda inaysan wafdigiisa ka mid ahan haddii hirshabelle uu la yimaado wixii mas-uuliyad nabadgelyo darro halkaa ka dhaco mas-uuliyaddeedaasaa qaadi doona ra'iisul wasaaruhu waa ra'iisul wasaarihii waddanka hadduu doonayo xal inuu ka gaaray arrimaha hiiraan asigoo keligiisaa noo yimaado iyo wafdigiisa dowladda federaalka laakiin haddii hirshabelle uu keeno wixii nabadgelyo darro ka dhaca halkaa mas-uuliyaddeedaasaa qaadi doono ra'iisul wasaaruhu soomaali tareen qaldanay saaran tahay horena u saarneed tareenkaas xagguu ka qaldan yahay wuxuu ka qaldan yahay arrimaha soo socda kow madaxweyne ayaa rabo inuu sharxo sharaxaaddiisaas ummaddii soomaaliyeed oo dhisi laheyd ma rabiyo wuxuu raadinayaa carab iyo yurub ama reer galbeed baan dhaho inuu lacag ka soo qaato heshiis la soo galo soomaali u yimaado oo soomaali baabi'iyo taas waa midda aafaysa dalka laakiin dadku waa arkaanay kama jawaabi karaan
madaxweyne laaluush soo qaatay oo laaluushis la soo siiyey oo dalkiisii lagu yidhi annaga waxaan rabnaad ka samaynaysaa adiga waxaa rabta ma samayn kartid inaan maalin walba u sabcinno oo aan daba fariisanno shacabka haddaan nahay aadaa looga fiican yahay dhibteedana waa aragnay waxaan aragnay intii madaxay soo socotay oo dhan nin walba wuxuu u qaraab tegayay carab wuxuu ka soo helanay markuu la yimaado dalka dhexdiisa wuxuu ku samaynayana waa sidan soo socota lacagtaas markuu dawladda ka soo helo baarlamaankii uu imaanayaa baarlamaankii uu laaluush ku dayaya inay laaluush ku doortaan okay baarlamaankii markii lacagta uu ka qaato madaxweynaha laaluush lagu doorto waxay dib ugu noqonaysaa haddana baarlamaankii doorashadiisii ayagana lacagtii ay ka soo dhaceen madaxweynahana uu ka soo dhacay carab iyo galbeed soomaalina aan shaqo loogu wadin in ayagana nabadoonnadii ay ula yimaadaan ay dhahaan lacagtaana wadnaa nagu doorto dalkii oo dhan marka inuu fasahaad noqdo oo qarib noqdo waxaa markhaatimo doonta ah baarlamaanka soomaaliyeed waxaa lagu yidhaahdaa kulligood inta ay tiro la eg yihiin waa fadlan ku shubo kelimaddaa fadlan ku shubo xaggee ka timid marka waxay ka timid waa laaluush qaate hadduu laaluush qaato dan uma hayo soomaaliya marka dalka dan uma hayo dadka dan uma hayo diintana dan uma hayo maxaa dhacay laaluushka ilaahay baa xaaraantimeeyey wuxuu ilaahay xaaraantimeeyey in ummaddii soomaaliyeed la dhex keeno islaamka ahayd oo lagu bara sidaan waa arrin qalada